magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee boqortooyada UK ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay lagu qabtay taasoo looga gol lahaa in lagu xuso maalmaha xorriyadda kuwaasoo ku beegan 26 Juun iyo 1 Luulyo. Munaasabadan ayaa noqonaysa mid si weyn loo soo agaasimay iyadoo ay ka soo qayb galeen wufuud sare, mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkan UK. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya ee wadanka UK mudane Danjire Cabdiqaadir Cabdi Xaashi, mas'uuliyiin ka socda dawladda UK oo ay ka mid ahaayeen ku-xigeenka wakiilka boqortooyada ee gobolka Cornel Sarelain, Simon Foster oo ah komishinarka booliiska West Midlands, xildhibaano hore madaxda bulshada Soomaaliyeed ee UK, ururada bulshada, gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed Marwo Jawaahir Daahir, dhalinyaro haween culimaawidiin iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka UK. waxaana munaasabadan looga hadlay taariikhda halganka gobonnimadoonka Soomaaliyeed, muhiimadda ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, doorka jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool gaar ahaan UK ay ku leeyihiin budhiska dalka iyo horumarkiisa. munaasabada intii ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso wadani, ciyaar dhaqameed, suugaan iyo taariikh dib u xusuusin ah oo muujinaysa halgankii xorriyadda. dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay soo bandhigeen riwaayado ka turjumaya qiimaha ay ummadda Soomaaliyeed ugu fadhisa maalmaha xorriyadda. danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan UK mudane Danjire Cabdiqaadir Cabdi Xaashi ayaa jeediyay khudbad qiiro leh oo si qoto dheer u taabanaysa qulubta ka qaybgalayaasha. danjiraha ayaa si qiiro leh uga hadlay taariikhda halgankii dheeraa oo ay shacabka Soomaaliyeed u soo galeen, isagoo xusay in xorriyaddan maanta aan ku noolaaynay ay ku timid halgankii ay u soo galeen geesiyadii dalka u sabab noqday inuu dalkeena xoroobo. munaasabadan sida weyn loogu xusayay maalmaha xorriyadda waxaa soo qabanqaabiyey ururka Soomaalinimo UK oo ay madax ka tahay Abwaan Ayaan Aadan oo ah hal-abuurka Birmingham. calanka Soomaaliyeed cirshiga ka nuur in af Soomaaliga lagu hadlo inaana loo qaadanin afafka ajnabiga inay yihiin sharaf. waa inaad afkaaga ku fanta oo aad tiraahdaa I am proud of my language. maamaa horena tiri mindi saawir noqoto iyo madaxa muuqi la arkaa marna kama samraysid. mawlahan ka tuuga allow maanta samatabix aafadan ka meel mari kana yeel masagadii kal iyo mooyo baridee murgac iyo xanuun iyo ayaan helin masiibadu. safarkaygu waa meel saldhigiisu waa nabad, Soomaaloo isjecelo tawxiidku sooriyo u yahay sidii quud oon saatir mooye u sujuudin alla kale, saf kaliya ku wada jira oo wada sokeeyo ah sahankeedii baanahay. isku diig, isku dal, isku dan, isku dad, isku hadal, isku amal, isku dhaqan, wax maqan ma jiraan hadda xisaabta la socotid. For in pain we find peace, and in pleasure we find release. For inna ma'al usra yusra. Within the hardship, it is a call to action for all Somalis, both at home and in the diaspora, to rededicate ourselves to the ongoing journey of peace building, national development, and prosperity. It reminds us that the dream of a stable and thriving Somalia is a collective responsibility. السلام عليكم داوديال magacayga waa Ayaan Aadan waxaan ahay abwaanada oo matarsho magaalada Birmingham oo UK. caawa waxaan qabanay xafladda ugu weyn Europe oo loo dabaaldegay 1 Luulyo magaalada Birmingham. 600 ilaa 700 qof baa ka soo qayb gashay. waxaa loo dabaaldegay astaanteena Soomaaliyeed. waxaan nagala soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya Ingiriiska Cabdiqaadir Xaashi, Simon Foster, the West Midlands Police and Crime Commissioner, as well as the representatives of the Crown here in Birmingham. So one xusnay dhaqankeena. My name's Simon Foster. I'm the Police and Crime Commissioner for the West Midlands, and it is a real pleasure, an honour and a privilege to be here with you this evening. Thank you so much for the invitation and for your hospitality. It is very much appreciated because it is so very important that we all engage with, listen to and work with each other for the greater good of us all.
And this evening, we've all come together, united as one, to acknowledge and celebrate the 65th anniversary of the independence of Somalia. I'm a Deputy Lieutenant. The Lord Lieutenant cannot be here, and he is genuinely upset that he can't be. And he's made the effort of writing a speech, which he'd like me to read verbatim to you. Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone gathered here to celebrate Somali Independence Day. On this special occasion, we honour both the birth of the nation and the extraordinary contributions of Somali communities in the West Midlands. شرف فيها إن نعاوة إن كل سوق يبقى حفلة لو قلت لك لي حرنبدي صومالي كسوريكتي لحدا يشن سنة وحن لي هاي همبليو وحن ربا إن كلمة كيرا هذا ريبر مهم وحن ملينا يا عاوة واحد صباح دين سقروح بدن أنا كمت الشدين أورد كان runtii waa surprise waay waa lagu surprise gareeyay waxaan nimid markaygii saddexaad Birmingham walaalayaal waxaan leeyahay aad u mahadsantiin sharaf ii tahay gabadha walaashay ay soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan waxaan leeyahay waxaad samaysay taariikh waxaa kula jooga safiir wanaagsan waxaan jeclahay sanadka dambe soo ku sheegay safiirku inaad isla qabataan runtii aad wax way qabataan mahad aan caadi ahayn horta ilaahay oo mahad oo dhan leh laakiin waxaan mahad weyn u soo jeedinayaa ayaan aadan iyo intii kala shaqaysay xafladan quruxda badan oo runtii dareen aad u weynagelisay rajo weynagelisay gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay ama ayagoo aad u yaryar runtii dhalinyaradiina waxaa dhici karta inayna wax badan ka ogeyn dalka Soomaaliyeed ka timaadeen ama waalidiintu ka yimaadeen dalkeena wuxuu soo maray 60 iyo 5 sano oo xorriyada maantay 5 sano Soomaali 65 sano waxay isugu jireen sanado aad u qurux badan iyo sanado walaac leh iyo sanado marka soo kabasho oo laga soo baxay walaaciyada maanta Soomaaliya ma rabo inaan idinka sheekeeyo taariikhda Soomaaliya soo martay laakiin meesha maanta ay joogto baan hadalkayga ku soo koobaya maanta Soomaaliya waxay joogtaa meel qurux badan meel fiican meel rajo leh meel intiina aan dhali markaad wax barataan aan rajaynayno inaad aan u soo shaqo tagtaan oo mar dhow wadootiin oo batroolka Soomaaliya laga ogeeyo ilaahay waxaan rajaynaynaa مدة وين سعودي الكويت كيف كان كبحنا جماعة هذا application هذا وتر ستان إن هذا الكلام يمان سنة دلايا هذا وحويه ضد الصومالية أنتوا أبغى وحكات كا اسمه بالصودا حكوا الصودا إلا السرايو عمله رد الصومالية وهم بري وأنتم كلا ترتما ودرس في سلا ترتما أما كافي عام هدلايا هذه رجينا سنة عيد ونكسر مالما حرية وفرحات كل عيدان كوا ضبوا صوصا إلهي وكبرنا وجرسيو عافمات يوم النمو يصوم النمو Somali عمرته Somali عايز رعاه تتكلم عنه قول بعدين رجالي عبد الفتاح علي شروح warbaahinta caalamiga MMTV magaalada London Hey,